sidii barnaamijkii toddobaadkii hore aan idinku ballan qaaday barnaamijkani waxa uu idinka imanayaa magaalada Porto oo ah magaalo madaxda labaad ee waddanka Boortaqiiska kooxdii Durban ayaa waxay ka soo qayb galeen bandhig caalami ah oo sanad walba lagu qabto magaalada Porto oo loo yaqaano Cervales magaalada Porto dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa ilaa 350,000 oo qof waxyaabaha caanka ku tahay marka laga tago dalxiisayaal fara badan oo sanad walba yimaada magaalada Porto waxa ka mid ah carwadan maanta aan joogno oo kooxda Durdurna ay ka mid yihiin fanaaniinta ka qayb galaysa caalamiga kooxda Durdur bandhigoodu waa caawa laakiin marka sida oo kale ay ka muuqan karaysa waxay wadaan baroobadii ama tijaabadii qalabka caawa ay tubi doonaan iyo heesaha ay qaadi doonaan beertani markaanu joogno caawa dad baa ka soo buuxsami doona kumanaan iyo kumanaan qof oo Boortaqiisa iyo caalamkiisa kalaba ayaa ka soo qayb geli doona oo daawan doona heesihii Soomaaliga ahaa iyo bandhigga halkan ay ka samaynayaan kooxda Durdur barnaamijka caawa Durdur halkan ay ka dhigayaan hal shay uu kaga duwan yahay kii Amsterdam toddobaadkii hore aad soo daawateen barnaamijka caawa ay soo bandhigayaan kooxda Durdur hal shay buu kaga duwan yahay barnaamijkii toddobaadkii hore ee bandhigga ahaa ee magaalada Amsterdam kooxda Durdur waxa ku soo biiray oo caawa bandhigga kala qayb galaya fanaan ay dadka Soomaalidu aad u yaqaanaan oo masraxiyada ama caweysyada magaalada Muqdisho caanka ahaa iyo dalka Soomaaliyaba sanadadii 80-yadii waxa weeye Xabiib Sharaabi oo isaguna ka yimid waddanka Sweden oo kooxda ku soo biiray haddaba bandhiggan ama carwadan loo yaqaano Cervales waxa marka hore iiga warramaya Liibaan Saalax oo isagu gudoomiye waa kooxda Durdur Liibaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar kale inaynu wax loo qiimo loo dhigaa ma jirto waad mahadsantahay bandhiggan ama carwadan Cervales waa bandhig caalami ah sanad kasta la qabtaa markii idinku horreysay ka soo qayb gashaan anaga asbaarso Boortaqiisku maanta kursan karayo waa markii koobaad aan nimaadno Boortaqiis magaalada qurux badan ee ku soo casuumaan waana si wanaag iyo guul soo dad ummadda Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliya ku hadasho ummadda Soomaaliyeed ku soo dhawaan saan qabo qof ummadda aqoonsi yahay maanta oo qab meesha doonay ka yimaadaan Soomaaliya Djibouti go'o meel maanta la aqoonsaday falkooda joogi jiraan waa farxad ku noo soo dhawaan قرتي بندق اللي بحكي قدوي بدران اللي كي أمستردام كي أمستردام بحكي قدوي مشروع إنسان وبلعبي لا بشغل حرام شغل حويا وتياتر ذا يو كلابي ذا يو بلد قومن قف كل شيء قف لا بكل سيدي أمستردام هاي لما الحرم قارن وفيستيفالز وحويا سومري كلمة هنا كوح كلام فربضان وعالم كلمة هذه هي شيء إنه كلا الشغل ديارته مركزورة عيني يارضو ساسي وبحين ودك أسا مقالة سالة بسوق القليا waxaa jooga dad badan oo Brazil ka yimid Brazil aad u fara badan inkastoo ayna xamal inay ogeys Soomaaliya dalkoodu waddanka Brazil ma ay gumaysan jiray maartay dad luqadna ku hadlaan waa waddanka Brazil isku luqad qaadaan soo in sense waxaan joognaa Brazil baan joognaa oo yar dadka diyaaradda nala soo raacay Brazil bay yimaadeen shalay marka festivalka wuxuu ka duwan yahay وحفر بدنا يكتب بالمعاو وبرنامج كوضيع هذا وحنا كنا وساوند شيء عذر كي حاجات كذي ما تي ندعمتي عد كنا قفل إنه قفل ممكن نقول نجوم كتمية وحاجة كذا فيستيفال كوكا قريب سما فرش حنو قبي هو هاي وحنا هذا إيش متشجلين مركب واحد لازم ميوزيكالية ما هم ميوزيكالية ما قبت الموسيقى أنا قاعد حوجة هاي سنة aad baan loo xisanay kooxda Durdur aad baan loo xisanay marka taas waa stage ka weyn loo siiyay qaraha ugu weyn meesha oo maartay French waa weyn kulliga kooxaha weyn adduunka caalamka so this was festival waa dawlad dadkeedii caawinaysa dadka marka ku qabtaa reeraha wad arkaysaa waxay dawladdu u samaysay dadkooda mujtamaca meesha yihiin waa caburtii iskuulada waa waddanka qof walba iska raaxaysanaysa markii waxaan dawladooda kharash gelisay si ay ummadooda ay maartay u tusto inuu maartay dad xadaarad iyo culture iyo maartay familada ay soo baxaan oo maartay أنا فيلنا عاد من نصيب النعسران وإن ما تهون كل من نشوفه وما أنت ما هي رأيك إذا سومالي مقلة مرح سومالي أكثر من سرعة.
marka ma loo oran karaa saad sheegtay maadaama aad loo qiimeynayo kooxda durdur iyo bandhiga ay caawa samayn doonaan taasaa gabagabada laydiisii caawa soo xidhmaya soo maha برنامج عاوز صاحب ليها برنامج كنت تسرح شو صار لكن ما أنت وبرايم تايم وما لما وسي شديد وياه إلا حلو ولا شو ماشي إلا حلو ولا شو وما لما شديد وياه ماشي مركب حال عادي أنا وحن حيسنا تضبط عفرت الدكتور إلا استقعاد يشد الجمال سامنا مركب ساعد يوحنا ساعد الحباس أنت سامي بتكمل ريبانو بالورق كرا دولة الصومالية lagu qabtay war xoro ka yimaado xaqii dhulka oo budhcadbade iyo argagixisyo iyo dagaalo iyo abaaro in wejigeedu uu yahay weji caalamka Soomaalida ugu badan yes absolutely amiin hore wada la jabtay xeelaha mucjisaad iyo intii la yaabay hayn waddankeena marka daaladu maqlaan news ka maqlaan Soomaaliya soo qaado waxa lagu soo qaadaa wax aad u xun qarax baa dhacay inta qof baa dhintay ama shaqada ama iska xadgudbay xeelaha ka soo qaadaa ama dumar baa ku sameeyay ama عنك وأنا فوق وبنتاعي يقول يرتب لك سوق علي وادد مديس كلية ودد سكينة ودد حيث قاتل ومكان زي يقولون ودد مشكلة وحيل كلهم عيبان وكذا وسكات sometimes على كاكل سقف كثير طويل بعده وفينا سكر ورجال عصام وبهذا حاجات كتبنا شو أنا زمان كتبنا كلها وبعيش سنة وطموح أنا زمان كتبنا نيمت أموي هكذا لما كانت تشتغل كان صباح جورنال كوليشن صباح كثير وصباح وحن قال لي أنا ويا بيه قال كل شيء ممكن كنا إلا أويا أوين كتير يسكون اسم الحين سومالنا مساكين ده ما نقول كم لا هي واحد من هذا كسرين هو يعني موسيقى يونيك وعجيبة هاي ستان اسم الحين أقدر يعني هاي chance كثير يحب كلامه المسلمين وسوف نقرأ عالمك وحنا وحنا كاهين أما أنت لك وحنا أو أنا قلت كبيان هاي ليش القوة سماي مركزك يوم خلاص وبنحكي وحنا وحكاوا الكبر صار الصب ناس ما يسمع fantastic kooxda durdur imika xaggaygan dambe idinka muuqata kulligood waa wada Soomaali nin keliya oo saxofoonka kumaya ayuunbaa reer Suudaana marka bandhiga caawa waxay noo dambeeyeen laakiin waxaan iskiin baraya fanaaniinta iyo musicianska bandhiga inta haddaba tijaabada qalabku ay socoto ayaa waxay suurta gashay inaan la kulmo nin fanaana oo weliba fanaan weyna oo aan hubo qaar fara badan oo idinka mid inaa ama muuqiisa garanaysaan ama heesihiisa aa maqasheen sidii furitaankii barnaamijkaan idinku sheegay waa xabiib sharaabi xabiib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu halkan ku kulanno aniga qudhayda waa markii ugu horreysay fanaanka xabiib sharaabi aanu si toosa u kulanno xabiib waan ku faraxsanay inaan halkan isku aragno wallahi anigu sidaas oo kale suula baad degantay bea waxaan ku deganay maalmo muddo intee lag baad deganay dadka ilaa 8 sano laakiin dee niyo berigaad heesiisay iyo saad u egtay isma laha وهاش ولا قاعد في مستي يعني قلبي يعد قلبي يعد هاي واحد عذر هاي عمومي هاي نقطتي ما شاء الله ما شاء الله حبيب شرابي ضد رمضان برنامج كدعورية تاريخ هذا ولا صعبان انت عن سوى نكسل ووجي حبيب شرابي بخدوه معنا
انت يقرنين كل اوكي وي مقلين كل دغه يغ مقلين قاربا يعني عرفتي نغا كلا مخن اي اول سمولي اركي marka waa loo baahan yahay xusuus ay kamid tahay yani magaca sharaftay inta sano aan raadinay kooxdana ku isku kala live intii aydan durdur ishelin sida sheegay kooxdana ay isku dibadhaceen deefankii kabaad badnay ma halahan CD-yada la geliyay dukreys ma jeclaan ها موسيقى وكذا وسيف كريسنا CD-da dadka shaaca ma gasho ها USB kan geliyay magaalada Muqdisho sanadadii 80 bandhigyadeeda iyo caweysyadeeda caan ku ahayd waqtigii barigaas maxaad ku tilmaamleed fanka Soomaalidu heerkee u joogo isku heer ma iyo hadeer waqtigaas waqtiga lama heli karaayo waxay ku xirtay wadankii dib nabad ها wala samayn karaa laakiin wadankii nabad hadaad aad لكن حبيبي دايما Soomaalidu yani Soomaha فرحت يبغى هريسو فرح سنة حبيب شرابي وعبروحة وهلك كملي دونا يسيق قديسو تتابدو كمدي مركا برنامج هلكا سوي لوغسي سعونيا حبيب وينو هدو والباطسة مسرحنا بيستيج كان أيام كوحات سوق يمكن بدك العروض اللي هي سوق الجنان كوح ولا بابا مركورة سوق ده هالكلام سيت شابية وقت كمال النمطة الدفيت في مركلك أيام ده هاي بلا بيان لكن أنت كون رئيسنا سدار كيسان بيرتن دادو في بدن بجوجا وحصل بندقية كلا عروض كمدتها أما فرشحها هالنقطة أما قبيدي هالنقطة أما وحيابه كلا هالكل المسؤول بندقية هالنقطة مركها لكن بندق kastoo koox music tumaysa ama bandhig samaynaysa aragtaan waxa ka horeeyay tijaabo fara badan oo qalabka lagu sameeyo oo codku sidoo soo baxay lagu eego inkastoo kooxda durdu ay isla yaqaanaan oo muddo dheerna ay imika bandhigyadooda sameynayeen haddana mar kasta oo bandhig ay samaynayaan waxa ka horeeyay tijaabadan oo kale ama baroobadan oo kale oo lagu eegayo dhagihiin codka la eegayo qalabka iyaga u dhow siday isla helayaan baan eegayaa inkastoo
bandhiga kooxda durdur uu caawi yahay haddana dad fara badan baa halkan ku arkaysaan oo iyaguna qudhooda tijaabada heesaha lagu samaynayo kula sii dhuuqaya oo bandhiga sii daawanaya iminka waxaa soo dhammaatay baroobadii ama tijaabadii kooxda durdur ay samaynayeen bandhigiina sidaan idiin sheegay waa caawa iminka waxaa ila jooga cabdilaahi cujeer oo ah ninka keliya ee kooxdan durdure iminka ka tirsan ee kooxdii hore ee durdure asalka ahaydna kelidii hadda kooxdan kaga jira cabdilaahi waa ku faraxsanahay inaynu halka ku kulanno mar kale durdur horta goormaa la aasaasay markii hore durdur waxaa la aasaasay 1983 waay waxaana aasaasay allah u naxariisto ciise daahir qaasim oo organista ahaa iyo aadan xandal oo gitarista ahaa iyo mukhtaar ramadaan allah u naxariisto isagana vocal singer ahaa kadib waxaa aynu aqoonsanay in kooxdii maaragtay laga dhigo koox maaragtay private sidaas darteed waxaa samaysmay kooxdii durdur koox baraafida markaad leedahay waxaad uga jeedaa miyaa kooxaan sidii caadiga ahayd ee kooxaha Soomaaliya ahaan jiray aan dawladda u shaqeynin sax kooxan dawladda u shaqeyn laakiin iska madax banaan isla markaasna bixisa canshuuraha dawladda haaya sidaasaan ahay oo marka musicianskiina ama heesaagiina dhalinyarada waxaydeen dhalinyaraan ahay anigu 20 jiraan ahaa laakiin ayaga xoogaa waa iga roonaayeen markii hore waxay ahaayeen koox jabhadii Soomaaliyeed ee 77 maaragtay dadkii maaragtay dagaalada markay jireen wuxuu ahaa meelihii dawladdu qabsato maaragtay waayaday wax ka sameeyay wacyigelinta ka sameyn jiray dagaalkii markii laga soo noqday kooxdii marka waxa shaqo ay qabato male markii dawladdii waxay ka codsatay inay maaragtay private noqdaan ay canshuurna bixiyaan saas darteed ayaa dadku ku sameeyay marka bandhigiyaa dhigi jirteen caadiya oo sidii googooska oo kala mise riwaayadaan lahayd riwaayadaan dhigi jirnay goosgoosaan dhigi jirnay toor aan samayn jirnay ama waxaan ku wareegi jirnay Soomaaliya ilaa Hargeysa Burco waxaan tagnay Boorama Gabiley Berbera ilaa Kismaayo meel walba waa tagnay muddada dheer ee fankaadi ku soo jirtay Cabdilaahi isbedelka ugu weyn ee ku dhacay maxaad ku tilmaamay والله ودنك وحاول نيه وحول دبعته ميل وبيسان اسمه مركي ودنك أنا قبل بري فنانين تسير ودولة قاعد تكون جرتي شرعي قال مركي ماركت أو يكلم بنتي إلى ما تميل والبول سلوتي قاعد هاي واطي مركها قرمة دبسو أبا بشيء ودردر صار شواص والله مركي دبت عن إمان نمر كنت بحاول أيام ليبانا عرقني ودني مركي فرد عندي واحد مرة بعد مرة intii nool markay isu yimaadaan si bandhigyada caalamiga kala qaybqaadano adiga waa maanta joogno ku faraxsanahay aduuriyada imisa bandhig ma markaa ilaa imka wada jir uga qayb gashay wallahi lama tirin karo aad u badan yihiin ilaa Portugiiskan maanta aan joogno Talyaaniga maana waxaan tagnay oo kale muxuu ah Belgiumka waxaan kaloo tagnay Sweden waxaan kaloo tagnay Norway saasi u sii soconayaan dadka markaa bandhigyadiina daawada wadamada Yurub aad sheegtay amriiseen siday muusigii Soomaaliga u qaataan wallahi kulli anagu waxaan ka dhadhacsin dadkii inaan muusig Afrika kamid ah aan tumin laakiin waxaan u baahan anaga Afro jazz maadaama Afro jazz maadaama muusigeena anagu aan casriyeysan aan u sameeyay sida maaragtay maxaa muusiga Afrikaanka oo kale taas waxay noo suurtagal in aan maaragtay tanada qaadko aan ka qayb gali karno dadkuna u riyaaqeen Cabdilaahi bandhig la yaab la Amsterdam ku soo bandhigteen ka caawana waxaan u malaynayaa inaanu ka dhici doonin laakiin musigan bariyahan dambe Soomaalidu ay tumaan qofku uu musigiisii jeebada ku wata ama boorsada iyo ka kooxdu markay soo dhantay maxay ku kala duwan yihiin wallahi adiga kulay waa dhalinyaro cusub oo waqtigeeda la socoto waa generation music way ayagu laakiin waxa ka maqan aqoontii iyo xirfadii muusiga maaragtay lagu sameyn jiray ayagu waxa kaliya maaragtay ay focus gareeyaan ama ay ku fakaraan qofka inuu helo
in uu qof uu wax u samayn karo oo kadibna uu heeso isagoo ku dadaalaya qof walba inuu maaragtay sidaa fanaan ku noqdo laakiin aniga waxaan ku waanin lahaa kuwa talin lahaa maaragtay inay muusiga bartaan sida annaga maaragtay aan u soo baranay kale u bartaan kadib waxa ay muusiga Soomaaliga meeshiisa ku soconaa Cabdullaahi aad iyo aad baad u mahadsan
aamina heestii ugu horreysay ku tuurtay kooxaha faraha badan leh haddaba ka qaybgelaya carwadan qolo walibaaba marka tijaabadeeda ama baroobadeeda ay dhammayso waxaa loo sameeyey qol yaroo dambe oo ama ay ku nastaan ama ay ku diyaargaroobaan sida arkaysaan durdurbaan ayaa halkan ku qoran ama kooxda durdur markaa waa halkay isku diyaarinayaan hadhow marka galabta la soo noqdo kahor intaanay bandhigooda rasmiga ah gelin kooxda durdur bandhiga caawa ku daawan doontaan iminkana tijaabadoodii aan ka soo baxnay waa koox dib loo habeeyey musicianska iyo fanaaniinta ku jira berigii Soomaaliya la joogay kooxo fara badan bay ku kala jireen Saciid Xuseen waxa uu ka mid yahay ragga maanta xagga music iyo tumitaankiisa aad looga dambeeyo Saciid sida dad fara badan ay ku yaqaanaan wuxuu ka mid ahaa howladii waa beriga caanka ah ee Soomaaliya Saciid arrin kalena way jirtaayo intaan waraysiga bilaabay Saciid waqtigii iskuulkana waxaan ahayn iskuul أما إسكو وقتي سعيد هذه الظهر تكون صامية سكور هذا قصة عن طلع شنو سعيدو كوحدي وابري وحتى فرق ضبط على جيا باين على تاريخ ذي السوى لكنه هينين اللي يرضى هو بطار وابري كوحدي قرن كهذي وابري واحد كوحدي قرن واي كدب لمركي أي سوتقل قلبينا كتجي سوتقولين كتير أنا وقتي واحد لقط صوماليا هاي ولكن مدارات شيء كوف عايد لقطة صوماليا جت ما تدي تعرائل لقطة الجبل إنجليز وقلا لقطة أو كان حلي واحد مرة أيام هاي واحد خارج كده وقتها لا وشان يافرت المعطي سعيد مركا آد بادو دائري دسكالية طلعت كي مركا تكون بين تكوحدة ما أفريتو من شيء كليه أيوة هاي واطي كوحدي وابري كالي تيوي كجيرين وحصو صار كان عفان كده صومالي وردا روحا وقارنتي مخلص عسوه سو كوحدي كجيرين حمد شغالان كوحدي بالوياشا وابري وحنا كو يكون هذا التياتر كحمد أما تياتر كحمد وحساسات هو قدناين كنا حدنا دولدنا وكحدناين وربتي وحيان صار وحيان بدأتني يوم هذا معامل يوم سعيدو ميوزك ومية رئيستي ضد فرا بدنا كوي قانا إمسا قلبات تطا أنت ألوان طبعا هو شنوي شنبات تطا كوي وي مركا أوردن كتاب بيس كمان يا آلة دمسين كان براعي واطي سعيدو waxaan ka war hayaa dhawaan inaad ka qayb gashay bandhig kale oo caalami ah oo Soomaalida aad kaliya matalaysay oo Armenia lagu qabtay bal hada bandhiga nooga waran muxuu bandhigaasi waxa runtii waxa la raadiyay Cabdisalaam oo nin maxay musician Soomaaliyeed waxa laga soo saaray Australia way marka nin musician Soomaaliyeed qora akhriyana ayaa la raadiyay هذه برنيكا لا لا وصل واحد كاس ما أنا تمنى واحد كم به وعود كني مركا عود كي وكراعي وأقدر تابل غرفة وأنا هذه مصدر دوران راتب مسك أو ميزكو تسعيد ورا خلنا طب هذا ميزي شركة حلته ميزي عالمي يمسكوا فيها تضمات لله سديت الخوف وقفوا واحد قرية واي انت الرجل ويا راي ميوزك توي سنة بحوها مطلع كلاسيكال ميوزك قرطي دي بحضين تنكوحنا دور مكلمو سميي دي بيصور ورصتين فنانين تيني يميسي شريسكين إيما أنت لك بقول هذا وحصل صار كفن كيس ومالك. إنه أنت ممكن كسوة عندي. وهي وإن هذه كملها عدل كملها برضو
وابل وها صالح وها اسكت وها معني وإن تريبل موسيقي أن تيجي تريبل سودا دوين هاي تيسكي وقتها ما بدك وقتها هاي سي لومو شيماتي وحيالها اللايف كميوزيك وي سعيد حسين أدي أدومات
haddii aad maqli jirtay fanaan dhalay halkan aan idinku hayaa waa ninka yaag taagan waa yuusuf axmed naaji weeye fanaanka weyne caanka axmed naaji baa dhalay isaguna waxa uu ka mid yahay ragga maanta miisiga lagaga dambeeyo kooxda durdurna waa ka mid yuusuf iyo waran bandhigan caawa halkan aad ka dhigaysaa maxaad filaysaa wallaahi waxaan filayaa wax aad aad u fiican oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogaan oo yani alxamdulillah markaan lahaa fanaan dhalay waxaan uga jeeday fanaan weyn oo caana ku dhalay ma odaygaad kaga dayatay xagga fanka marka ugu horeyso odayga oo aad aad u salaamaya haya aniga qudheeduna waa salaamaya fanku dhan intii fanka jecel kulli waa salaamaya marka maanta waxaan tusinaynaa dadweynaha weyn ama haya organkuu tumaa dee kaalay xagga heesahana iyo qudhooduna uma yaraysatid soo ma marka qaarkooda markii loo baahdo haya waa tay odaygu markuu ku arko adoo wax tumaya iyo saad u tumayso maadaama miisishan weynna uu yahay siduu kuu arka adiga والله وفرنا وفرنا هذه هذا ما دام المجلس وفنان قلب سؤال سما music markuu sidan oo kale iyo kooxda isku dhantay Yuusuf iyo markan la duubo qofku si dhiiga ku wato wuxuu ku kala duwan واحد مرددنka markaa kala duwanaanshiyo ama sidoo dhawaaqaya فرحيان أما فنانين حتى يعني فرحيان هاي bandhigyada dadka daawada music Soomaalida sidee u arkaa wadamada wadamada hadda mardhow ilaa iyo waxaan gaaraynaa ilaa iyo Soomaaliya hataa laga yaabo wadankii ilaa iyo إلا يجيبوت كل هذه إن شاء الله دو إلى يرانا مع العيد الوجودة يسمو تعطيك الجورن ما يجورمات فنك بلوضي هو تقول لنا طيبة لكن جورما كوجو الرسالة سكوت يدينا وحطوته ما كان جري تدوبتشي بس كبلوضي هذا ما حد مركات وطي كيبورد جيتار كم كانوا أقرأ جيتار كانوا أقرأ marka qalabkooda waa kii loo baahdo Yuusuf xidid haya waa ku talaalay sama waad maadsantahay
maqlaysaa ilaa ninka fanaaniinta ay qaadeen xabiib sharaab ibraahim kaysteynka saaran ama maslaxa bandhigu waa socdaa iminka waxay la jooga saalax xariiri oo ka mid ahaa raggii musicianska ahaa ee ugu caansanaa kooxdii iyaduna caanka ahayd iftin oo ay lahayd wasaaraddii waxbarashada ee dalka Soomaaliya saalax bandhigani waa kii misaada aad kala qayb gasho kooxda durdu والله عبدو bandhigan waxaan umalaynaa bandhigyo badan oo ka qayb galay kooxda durdu kan kii waxaan umalaynaa 15 waa dhan kooxii meelo badan ka soo timid daratii ugu dambeysay Jarmalka ahayd tii ka horeysay waxay ahayd Holland tii ka sii horeysay waxay ahayd Oslo Norway hadda waxaan joognaa Porto Portugiiska marka shaqadu waa iska badan kooxdii iftin raggii lagu aasaasay baad ka mid ahayd adigu raggii lagu aasaasay waxaan ahay raggii lagu aasaasay kii shanaada waati shankar sharkanoole sugulla zulfa saalax shantaas kii shanaad markii dambe iftin waxay noqotay koox labaada la aasaasay iftin haddana dad kale noo yimid oo shanteena ka baxsan Cabdi iyo Jeeri iyo Xasan Shariif dad badan aan ugu soo darsoon kooxda iftin saalaxo hadii aan ku weydiiyo maxay kaga duwaneyd kooxihii kale dhinaca fanka ee Soomaaliya ka jira kooxihii kale Cabdisalaam waxay ugu duwaneyd annaga waxaa xoog saarnay heesaha Soomaaliga in aan casriyeyno iyo aan sameeyno heesaha Soomaaliga laftigooda in aan ku sameeyno dib u habeen asoon la heesaynin oo music kaligiisa haddii aan kaaga soo qaado misaal ahaan soo noqodo nabada oo hibo qaaday waxaan ka dhignay soo noqodo nabad oo music kaligiisa waxaa laga daari jiray barnaamijka ogeysiiska iyo bandhiga radio marka idinkaana ugu horreeyay miyaa koox saas samaysay annaga ugu horreeyay saasaan kusoo suuq galnay shan qof oo maasha Allah ahaa iska dhalinyaranimana waa nagu jirtay raggii kale xaggee kala joogaan raggii kale wallaahi shankar wuxuu joogaa Mareykanka zulfa wuxuu joogaa Sacuudiga sugul Allah yarxamo waa dhintay Allah yarxamo sharkanoole wuxuu joogaa Imaaraadka Dubai qaar muusikadiisa weli ku dhex jira anigana inta idinka idin jooga maanta markaad eegto musiga Soomaalida sida uu yahay ka horena aad u soo joogtay maxaad ku tilmaami lahayd saalax wallahi music waxaan umalaynaa horta music Soomaaliga wax walba haddii la habeeyo waa hagaaga muusigeennana oo Soomaaliga wuxuu ka mid yahay muusikaalka xoogaa Afrikaanka ugu fiican ama oo xoogaa waxa ku jira maaragtay laakiin dhibka hadda gadaalahan burburkii markuu dhacay dhib waxaana qabsaday nin kasta keligiisoo istaagay marka keligiisa orda soo gatay wax ku tumaay marka kooxyaalkiisaasi ku wabeen hadda xataa xoogaa maasha Allah liibaan iyo adiga iyo xoogga saareen in aan isku keenno oo aan koox ahaan samayno ama ha lagu magacaabo durdur ama ha lagu magacaabo iftin ama ha lagu magacaabo beri no problem dan inta imika iskaashataa tiisa kooxihii Soomaaliya ka jiri jiray oo dhan hadda iskaashataan nahay marka waxaan rajaynaynaa jiilka kale ama kuwii dadka naga yaryar ee hadda soo baxay inay ku dadaalaan kooxyo sida camal oo meelaha waaweyn ka tumo ama Yurub ama Mareykanka ama Afrika naftirkooda dadkan bandhigyada u sameeysan muusigii Soomaalida aad tustaan reer Yurub sidee u qaataan saalaxo wallahi music noocay bay wallahi si fiican ay u qaataan music aan tumayno waxa waaye Afrikaan iyo East African iyo pop iyo wax isku jiro waaye oo lagu ciyaari karo yani dadka ka fahmaysa marka wax fiican tuntid qofku waa ku fahmaa laakiin marka hirib ku jirtid marka waxaad leedahay music waa international looma baahna in la fahmo luqadda lagu heesay necessary maaha yani ninkan ku heesay oo wax ku tumay wuxuu rabo ha ku heeso wuxuu rabo ha sameeyo qofka kale fanka yaqaan ama fanaanka ama music wax ka yaqaan waa fahmaa ninkan musikiisa iyo asaga inuu professional oo wax tari karo
imise waddan baad booqatayoo adoo koox oo ka mida imise waddan baad soo martay saalax haddaad weydiiya adoo kooxa la socda wallaahi waxaa hadda kooxa anoo la socdo waddamo badan aan soo maray marka waxaan kaaga soo qabanaa kii igu horreeyey aan tago 1977 waa 77 Nigerian Festival oo annaga kooxda iftin iyo kooxda hobolada waa beri la isku daray oo aan tagnay Lagos Nigeria 1977 berigaasa kugu horreysay berigaasa igu ilaa imkana sidii baad ugu tumaysa maantana waxa waaye 2019 waxaan joognaa ani iyo cabdisalaam Porto marka adiga fiiri inta u dhaxayso salax aad iyo aad baad u mahadsan aad u mahadsantahay
إذا ويدينا سوان كان هسا Somaliga. What do you think of Somali music so far? You like it? Yes, very much. Very happy about the music. I don't like the video stuff, but I like the way they keep going. Okay. waxay yidhaahdeen in heesaa la dhigu kala gooye maaha waa in laysku wada heshiiyaa oo si maaragtay aan la noogu badhgoynin marka dadku aad iyo aad bay laan soo gaaraan waxa weydiiyey weligood heesa soomaaliya hore u maqleen weligii yaalahay ma maqan Have you heard about Somali music before? What do you think? What do you think? أجل برونا أحسن بيدا ذلك السؤال music الإنسان Somali ذا ولي music هو الصعود كوخ الدردر ضبطه sida arkaysan ma heesii Soomaaliga loogu raaxaysanaya yaa yidhi music ma hay international language ama luqad caalamiya oo bini'aadamku dhammeeyo isku fahmaan sida loola dhacsiyo heesii Soomaaliga waa aragtaan barnaamijkan oo idin ka imanaya magaalada Porto oo caasimadda labaad ee waddanka Portugiiska intaas uu leeyahay laakiin dadka xiiseeya musica kooxda durdur waxay sheegeen maamulkoodu in meelo London ka mid ah ay ka dhigi doonaan dhawaan dabadeedna Oslo ugu xigta oo waddanka Norway waa Cabdisalaan Hereeri oo idinku dhaafay dhammaantiinba nabadgelyo